bismillaahi raxmaani raxiim waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee janalka wararka Soomaalida. qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah dhaawaca gudoomiye Yariisow oo la geeyay magaalada Dooxa ee dalka Qatar iyo xaaladiisa caafimaad oo wali la tacaalayo. shan su'aal oo ka taagan qaabkii ay dowladda Soomaaliya uga jawaabtay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir. musuqmaasuq halis ah oo ku wajahan ganacsiga qaadka Soomaaliya. maamulka Jubbaland oo xiriirka u jartay dowladda Soomaaliya iyo go'aano culus oo laga soo saaray Kismaayo. war cusub oo ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle xilli ay soo baxayaan warar sheegayo abaabul mooshin. iyo Somaliland oo tacsi u dirtay shacabka Tunisia xilli shacabka Muqdisho iyo madaxda gobolka ay wajahayaan tacsi iyo musiibo qaran. intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada wararka ugu doorka roon ee janalka wararka Soomaalida. daawada haddii aad ku cusub tahay janalka waxaad saartaa subscribe qaybta hoose ee janalkana waxaad inoogu reebtaa aragtidaada markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. diyaarad military oo laga leeyahay dalka Qatar ayaa magaalada Muqdisho ka qaaday dhaawaca gudoomiyaha gobolka Banaadir Anaduqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. duqa Muqdisho iyo xubnaha kale ayaa waxay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir waxayna diyaaradii ka qaaday magaalada Muqdisho ka dejisay magaalada Dooxa ee xarunta wadanka Qatar. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa raacay dhaawaca duqa magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo dhaawiciisu lagu sheegay mid culus ayaa ka dhaawacmay qeybaha kore ee jirkiisa iyadoo dhaawaca ugu daran uu kaga yaalo dhinaca caloosha waxaana hadda lala tacaalayaa xaaladiisa caafimaad. dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha dalka Qatar ayaa ku howlan la tacaalida dhaawaca duqa Muqdisho iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ee dhaawacyadoodu la geeyay dalkaasi Qatar. Saalax Umar Xasan Saalax Dheere oo ah afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in xaaladda gudoomiyaha gobolka Banaadir ay tahay mid iminka soo hagaagayso sidoo kalena hadda ay wadaan dadaaladii ugu dambeeyay ee ku saabsan xaaladiisa caafimaad. dhaqaatiirta dalka Qatar dowladda Qatar ayaa noqotay dowladii ugu horeysay oo ka jawaabta baaqa dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ahaa in gargaar loo fidiyo dadkii ku waxyeeloobay ismiidaamintii ka dhacday xarunta dowladda hoose ee Xamar. shan su'aal ayaa ka taagan habkii dowladda federaalka ee Soomaaliya uga jawaabtay qaraxii xarunta maamulka gobolka Banaadir ka dhacay. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay sameysay dayacaad amni iyo inaysan weerarkii xanuunka badnaa weli ka bixin jawaab dowladnimo waxaana isa soo tarayo eedeymaha loo jeedinayo. su'aalaha dad badan maskaxdooda ka guuxayo ayaa waxaa ka mid ah kow sidee qofkan ku galay xarunta maamulka gobolka Banaadir oo aad loo ilaaliyo. labo yaa u fududeeyay inay la fariisato gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta kale qofka isqarxiyay. saddex gargaarkii loo baahnaa ma bixisay dowladda federaalka ee Soomaaliya. afar maxaa diiday in la baaro oo lagu dhawaaqo guddi xaqiiqo raadin ah oo arrintan ka soo jawaaba sidoo kalena warbixin ka soo diyaariya. shan maxaa loo qaban waayay mas'uuliyiintii ammaanka ee qaabilsaneed xarunta gobolka Banaadir. waxaa soo baxaya weerarkii ka dhacay inuu ahaa mid maalmo badan la qorsheynayay isla markaana uu jiro tuhun lala xiriirinayo in laga yaabo inay gacan ka geysteen xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya marka loo eego sida ay u adag tahay xarunta la weeraray. xildhibaan Cabdirasaaq Jindi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan raali ka ahayn in la baaro weerarkii dhacay isla markaana ay horay u diiday baaritaano weeraro noocan oo kale ah. dadkii ay ahayd in la baaro ayaa baaraya dadka la laayay sidaas dowladnimo ma ahan. waxaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynayaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan raali ka ahayn in la baaro wixii dhacay oo xog dhaba laga keeno ayuu yiri xildhibaan Cabdirasaaq Jindi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ku eedeynayaan inaysan bixin jawaab dowladnimo oo ku saabsan weerarka iyo sidoo kale inaysan falcelin wanaagsan ka sameynin.
iyadoo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay canshuur badan ka hesho ganacsiga qaadka ayaa warar la helay waxay sheegayaan inuu jiro qorshe halis ku ah ganacsiga qaadka Soomaaliya waxaana qorshahaasi wada mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya sidoo kale mas'uuliyiintaas ayaa waxay wadaan qorshe ah in la musuqmaasuqa canshuuraha ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ka hesho qaadka laguna curyaamiyo ganacsatada Soomaaliyeed ee qaadka keena dalka xubno ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxay ku garabsiinayaan ganacsatada si aan sharci ahayn monopoly oo ay ku maamulaan ganacsiga qaadka si ay dhaqaale aan sharci ahayn uga sameeyaan arintan ayay yiraahdeen qaar ka mid ah ganacsatada qaadka oo si weyn ugu soo horjeesta qorshaha ay abaabulkeedu wadaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya maalmihii u dambeeyay waxaa socday shirar hoose oo ay lahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada aan Soomaalida ahayn ee qaadka iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa qorshahaas lagu bixiyay lacag u dhaxaysa 380,000 oo dollar ilaa $400,000 oo dollar si ay u jiheeyaan musuqmaasuq ay doonayaan iyadoo loo balan qaaday haddii qorshahaas uu fulo in la sii doono lacag kale waxaana arintaasi ku lug leh mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya ayay yiraahdeen qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee qaadka dalka keena qorshaha la doonayo in ganacsiga qaadka Soomaaliya gacanta loogu geliyo ganacsato aan Soomaali ahayn oo ajnabi ah kuwaas oo qorshahoodu yahay inay suuqa ka saaraan ganacsatada Soomaaliyeed ee keena qaadka waxaa horboodaya mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya sidaas waxaa warbaahinta u sheegay qof ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed waxay sheegeen in ganacsatadan ay gacan saar ka helayaan shirkadaha diyaaradaha ee qaadka keena waxaana qorshahaas lagu sheegay inay mar kale doonayaan inay musuqmaasuqaan canshuuraha laga qaado qaadka iyadoo la og yahay in dhawaan loo xiray mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya arrimo la xiriira musuqmaasuq canshuuraha qaadka ah maamulka Jubbaland ayaa ku dhawaaqay inuu xiriirka u jaray dowladda federaalk ee Soomaaliya xilli ay sare u sii kacayso xiisadda labada dhinac golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay in la hakiyo wada shaqeynta iyo isku socodka xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland golaha ayaa go'aankan ku sababeeyay faragelinta qaawan ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ku hayso hanaanka doorashooyinka Jubbaland iyo qalqalgelinta joogtada ah ee arrimaha Jubbaland mas'uuliyiinta dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sidoo kale laga mamnuucay inay tagaan deegaanada maamulka Jubbaland inta laga xalinayo khilaafka u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya golaha ayaa dhammaan shacabka Jubbaland ugu baaqay in midnimadooda ay adkeeyaan isla markaana ay meel ugu soo horjeestaan cid walba oo doonaysa inay dhibaato amni ka geysato deegaanada Jubbaland dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee Jubbaland waxay cadeysay in dowlad goboleedka Jubbaland ay u madax banaan tahay qabashada doorashooyinkeeda ayna mas'uul ka yihiin guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Jubbaland waxay cadeynaysaa in liiska odayaasha dhaqanka oo ay soo saareen guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland uu yahay kan rasmiga ah ee u diiwaan gashan wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda Jubbaland waxay hoosta ka xariiqday inaysan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya aysan wax shaqo ah ku lahayn doorashooyinka Jubbaland war-saxaafadeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ayaa jawaab u ah war-saxaafadeed horey uga soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya oo ku saabsan in odayaashii ay soo xuleen wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland in waxba aysan ka jirin gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed ayaa waxa uu sheegay in muddooyinkii la soo dhaafay uu ku sugnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si uu u xaliyo beelo walaalaha oo halkaasi ku dagaalamay waxa uu sheegay gudoomiye Cusmaan Barre in beelaha arintooda iyo sidii loo xalin lahaa waqti badan ay geliyeen isaga oo kaashanaya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan
waxaa xiisadaas ay ahayd mid ku qotantay dil askari ka tirsanaa ciidamada dowladda uu askari kale ugu geystay gudaha magaalada beledweyne taas oo keentay inay dhibaato ka dhex bilaabato laba beelood oo kasoo kala jeeda labada askari sidoo kale gudoomiyaha waxa uu sheegay in beesha uu ka dhashay askariga lagu qanciyay inay magdhow iyo diyo qaataan sidaasina lagu aasameedka askariga oo toddobaad ka badan ku jira qaboojiye yaala isbitaalka magaalada beledweyne gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba la xaliyay xiisadii labada beelood u dhaxeysay sidoo kalena xaaladda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne hadda ay tahay mid wanaagsan ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa damacsan inuu isbedel ku sameeyo qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle toddobaadyada soo socdo Maxamed Cabdi Waare ayaa la sheegay inuu isbedel weyn ku sameyn doono wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha Hirshabeelle kuwaas aan ahayn Maxamed Cabdi Waare ayaa la sheegay inuu isbedel weyn ku sameyn doono wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha kuwaas oo aan ahayn xildhibaano waxaana la filayaa in isbedelka uu saameyn ku yeesho wasiiro xildhibaano isku ah qof ka tirsan xafiiska madaxtooyada Hirshabeelle ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu go'aansaday inuu xilka ka qaado wasiiro dhowr ah isla markaana lagu bedelo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle si uu isaga xaliyo culeyska kaga imaanaya baarlamaanka arrintan ayaa lagu sheegay inay sabab u tahay culeys siyaasadeed oo soo food saaray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo hadda khilaaf kala dhaxeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa markii la doortay waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa inuu soo dhisi doono golo wasiiro oo kooban oo aan ka mid ahayn xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle balse arrintaas ma dhicin wasiirada ugu badan ee maamulka Hirshabeelle hadda waxay ka tirsan yihiin xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle waxayna noqdeen difaaca uga adag ee madaxweynaha maamulka Hirshabeelle guud ahaan daawadayaal halkaas ayaa kusoo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen janalka wararka Soomaalida daawada haddii aad ku cusub tahay janalka waxaad saartaa subscribe qaybta hoose ee janalka waxaad inoogu reebtaa aragtidaada sidoo kale daawade waxaad furataa gambaleelka si ay kugu soo dhacaan wararkii ugu dambeeyay ee aan halkan ku soo daabacno